munaasabad lagu soo bandhigay buu ka hadlaya saameynta suugaantuha ay ku yeelan karto dhinaca horumarinta bulshooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ay noo faahfaahiyo wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi oo jooga magaalada Muqdisho. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu soo bandhigayay buu ka hadlaya saameynta ay suugaanta Soomaaliyeed ee ku leedahay horumarka bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, abwaaniin, macallimiin iyo waliba arday. buugani oo ay soo diyaariyeen gabdho Soomaaliyeed oo iyagu ka qalin jabiyay jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay goobta ku faahfaahiyeen muhiimadda suugaanta u leedahay bulshada iyo waliba in suugaanta loo adeegsan karo dhinaca wanaagga iyo dhinaca xun intaba. haddaba waa kuwan Mano Xuseen Saabuuni iyo Anise Ciise Nuur oo faahfaahinaya buugani. cilmi-baaristeen waxay ku salaysneed saameynta suugaanta ee ku leedahay horumarka bulshada isla markaasna jiritaanka hiddo-dhaqameedka Soomaaliyeed sida heesaha dhaqameedka iyo gabayada. dhaqameedka waxaan ka wadnaa waxay tahay traditional dancing Soomaaliya sida dhaantada, sirowga, saarka, bullada, koobeyda. isla markaana traditional dancing Soomaaliya wuxuu noo cadeynaa waxay tahay in xitaa wuxuu sameynaa cadeyna Soomaaliya ma Afrika ka tirsan tahay ama Soomaaliya Carabi ka tirsan. waxaan kala ognahay Soomaaliya in suugaanta waxyaabo badan loo adeegsado sida gabayada waxyaabo badan loo adeegsado. waxaa loo adeegsadaa dhinacyo fara badan. marriage-ka waa loo adeegsadaa, dhanka guurka waa loo adeegsadaa, dhalinyarada way u adeegsadaan waagii hore. wili waxay ku dambaysaa dhanka miyiga in uu wiilkii tixgabay ama suugaaneed uu soo jeediyo isla markaana reerka u jeediyo. waxyaabaha kale Soomaaliya gabayga u adeegsanaysa iyo fan suugaaneedka kale waxaa ka mid ah dagaaladoo kale. waxaan ognahay inta cilmi-baaristaan soo wadnay waxaan soo ogaanay kacaankii ama markii qaranka la dhisayay in fanka iyo suugaanta lagu dhisay, dadka lagu baraarujiyay, heesa iyo rubaayada loo sameeyay. isla markaasna burburkii dawladii dhexe ay ka dambeysay fan iyo suugaan in lagu doorka suugaanta ay ku leedahay horumarka bulshada iyo dhanka dilo eegnaha dhanka waxbarashada, dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada wadanka iyo fursadaha kale oo muuqda oo wadanka maadaama horumar badan la muujinayo. ugu dambeyntii talajeedintaan ka soo jeedin cilmi-baaristaan sameeyay waxay tahay kadib markaan aragnay suugaanta inay saameyn weyn ku leedahay isbedelka wadanka ee ku yeelan karto. waxaan talajeedin ku soo jeedin lahaa cilmi-baaris dadka sameeyay in ay suugaanta noqoto qayb ka noqoto curriculum-ka lagu bixinayo iskuulada sare iyo sida awaan loogu siiyo young generation soo koraayo lagu dhiirigeliyo in suugaanta ogaadaan suugaanta inay tahay qayb ka mid ah dalkooda, dhaqanka dalkooda inay ka mid tahay oo awaar ku ahaadaan afkooda Soomaaliga iyo in ilaalaan wacyigelin hababka ugu fudud ee bulshada loo kicin karo oo inay tahay bandhig fanaad iyo sida waxa lamid lagu qabtaan iyo inay dawladda door muhiim ka qaadato soo noolaynta fanka iyo suugaanta oo doorkeeda meesha ka sii leecaya isla markaasna u sameeyso urur ka shaqeeya fanka iyo suugaanta iyo training inay sameeyso. abwaaniinta iyo maamulka jaamacadda Indian Ocean ee iyagu munaasabadani ka soo qayb galay ayaa gabdhahani Soomaaliyeed kaga mahadceliyay diyaarinta buugani. oo ay sameeyeen dad dhalinyaro ah waliba gabdhaha aad baan ugu farxayaan. suugaan waxaan oran karnaa waa nuxurkii ama naqi warka, waa naqi warka ama doogii warka ayaan oran karnaa. marka dhalinyarada waxaan ku gudbin lahaa inay kala bartaan qaybaha suugaanta. waxaan aad ugu mahadcelinayaa labada gabar oo soo diyaariyay qaybtan suugaanta ah oo aad moodo inay ka adag tahay oo aan laga helayn wax la tarajar review ah ama qoraal ka horeeyay oo badan aan laga helayn. aan ugu mahadcelinayaa. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.